Asalaamu calaykum dhammaantiin soo dhawaada. Maanta waxaan isla eegaynaa habka loo go'aamiyo kolomyadaada meesha ay fadhiisanayaan ama meesha kolomyadaada aad dhigayso, adigoo sidoo kalena ka taxadaraya kolomyada aan loo baahnayn. Aan iska bilaabano. Ka soo qaad inaad chapter-kan haysato, xaggan wadda ka maraysa, xaggana wadda ka maraysa. Bootadan intan baa laga dhisayaa baa ka soo qaad inay tahay. Xaggaas waa laba dukaan, xaggana waa cafeteria, xaggana staircase waa maraysa. Kadib xaggan intii xagee baan kolomyada dhigi karaya. Saa xaggan ku aragto intaan calaamadiyayba kolomyada waan dhigi karaa. Laakiin xaggana waa laba meelood oo possible oo la dhigi karo iyagana kolomyada. Laakiin maadaama ay isku dhow yihiin, waxaan u baahanahay inaan mid qaato midna aan ka tago. Haddaan labada qaato, waxaa laga yaabaa inaan ka maarmi karo oo labadan mid ka mid ah aan qaadan karo, ka kalena aan ka maarmi karayo. Ano marka eegaya structure-kan inuu safe yahay. Haddaan hadda yiraahdo intaas haddaan sidan ku go'aamiyo oon dhaho kolomyada in meelahaas calaamadiyay baan gelayaa oo labadana aan kan qaato oon kan ignore gareeyo, kan qaato oon ka dhaho waan ka tegayaa kolomkaas oo kolomkan baan qaadanayaa dhaho. Waxaan eego wax dhibaato ah ma jirtaa. Yes, waxa ii muuqda xaggan dhibaato. Dhibaatadaas waxa weeye staircase-ka. Staircase-ka waxaan garanaynaa in uu leeyahay staircase-ka ama jaranjartu wax la dhaho landing oo ah meesha lagu yara nasto. Meeshaas waxaan ogsoonahay inay beam maro. Kolkaas labadan kolom maadaamayna isinayn, beam-kaasi noocan oo kale iga noqon kara, sidaas oo kale noqon kara. Kolkaas there is a big problem xaggan. Xaggan dhibaata ka jirta. Xaggaas anigoo saa samaynaya, kani possible ma aha inaan xaggan kolomkan ka dhigo. Kolomkan waa inaan xagga u durkiyaa. Sidan camal oo kale. Haddaan sidaas camal oo kale, sidan oo kale camal. Oon kaas kaga tago. Sidan baan go'aamiyay. Hadda sida xaggan ku aragto, labada kolomi way isku toosan yihiin. Waana possible ama waa suurtagal oo haddii xagga beam-ka xaggaas fuulaya isagana waa suurtagal oo wax dhibaata ma keeni. Final decision-kaygu wuxuu noqonayaa inaan kan qaato oon dhaho kolomyadayda halkaas ayay fadhiisanayaan. Beam-kuna way u raacayaan. Saasaad u go'aaminaysaa. Xaggan waxaan ku diyaariyay isagoo 3D ayaan diyaariyay. Saa hadda aragtaan sidan buu noqonayaa. Wixii aan design garaynay kolomyadii meelahan buu gelayaa baan niri. Beam-kuna already uu raacaya dhimale. Kolomkii aan xagga ugu talagalnay xagga geli lahaa waan ka takhalusnay. Saas baan ku go'aamiyay. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.